shaqaaqadii ka dhacday duleedka magaalada Beledweyne. waxaan kaloo shacabka Soomaaliyeed la wadaagayaa geeridii ku timi Allah u naxariistay taliyihii qaybta booliska ee gobolka Hiiraan Maxamed Macu Xalane. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allah u naxariisto ehladiisii iyo familkii iyo cid walba oo Soomaaliyeedna waxaan leenahay samir iimaan dhamaanteen Allah naga siiyo taliyihii naga geeriyooday. sidoo kale waxaan leenahay intii ku dhaawacantay shaqaaqadaas Allah caafiyo. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka xun tahay shaqaaqada ka dhacday duleedka magaalada Beledweyne. wasaaradda amniga gudaha waxay magacaabaysaa guddi ka warbixiya oo ka keena warbixin waafi ah wixii ka dhacay halkaasi iyo shaqaaqadii iyo ciddii markaasi arrintaas ku lug lahayd. waxaana rajaynayaa guddigaasi inuu ka howlgeli doono marka la magacaabo sida ugu dhaqsiyaha badan. wasaaradda amniga waxay faraysaa dhammaan hay-adaha amniga ciidamada amniga inaysan ka qayb qaadan wax qalqal gelinaya amniga. sidoo kale inaysan ka qayb qaadan wax dhibaateynaya shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. bismillaahi raxmaani raxiim. maantay shirkan jaraa'id oo aan halkan ku qabanayno wuxuu daba socdaa labadii bishan waxaa ka dhacay degmada Xamarweyne israsaasayn uu ku dhintay qof shacab ah oo shacabka degmada Xamarweyne ka mid ah iyo askari ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaa kaloo ku dhaawacmay askar ka tirsan xoogga dalka ciidanka booliiska iyo shacabba. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya wuxuu arrintaas ka soo saaray wareegto uu ku magacaabayo guddi arrintaas soo baara xaqiiqadeedana ogaada. guddigaas oo aan anigu guddoomiye ka ahaa soona ogaada siday wax u dhaceen dhibka ka dhacay meesha iyo cidda mas'uuliyaddeeda qaadan kara. guddigu muddo dheer ayuu wuxuu ku soo jiray baaris waraysiyo xog raadis iyo intii lagu yaqaanay in baaris lagu sameeyo. aakhirkiina guddigu wuxuu soo gaaray gungaarkiisii